degmada Beled Xaawo ee gobolka Gada Soomaaliya waa magaalo ganacsi oo ku taala xuduud sadexagal ah tan iyo burburkii Soomaaliya waxay soo martay magaalada marxalado kala duwan oo dib u dhac ku keenay horumarkeeda balse magaalada hadda waxaad moodaa inay dib u dhacaasi ka soo kabanayso waxaana jira dhalinyaro dalka dib ugu soo laabanayso oo magaalada ku soo kordhisay goobo ganacsi oo casri ah magaaladana ku cusub goobahaasi ganacsi ee magaalada ku cusub waxa kamid ah garoon kubadda lagu cayaaro oo casri ah oo roog la dhigay ahna goob ganacsi oo si gaar ah loo leeyahay iyo jiim lagu jimicsado jirkana lagu dhiso Cabdiqaadir Yuusuf Qorleex Cabdiqaadir Qudufo waa macalinka ahna maamulaha goobtaasi jirdhiska iyo jimicsiga waxa uu kamid yahay dhalinyarada degmada dib ugu soo laabatay waxaan wax ka weydiiyay goobtani ganacsi ee uu degmada ku soo kordhiyay iyo waxa ku dhaliyay maadaama aan arkay bulshada inay u baahan tahay aaladan jiimka anigana aan ugu sameeyay si fudud aan ugu keenay ganacsatada aad bay ugu baahan yihiin maalintii oo dhan way iska fadhiyaan shahab iska cabaan meesha beecsharada soo fadhiyaan habeen guryahooda ku hoydaan aad bay ugu baahan yihiin maadaama habeenkii iska bixi lahaayeen haddii ay sameeyaan training caloosha iyo lugaha iyo ay jiimka qaadan jir furfur sameeyaan sokorta iyo dhiigkarka iyo waxyaabo badan cudurro badan aan u soo gaban lahayn hilibkana waa keenaa xanuunada fadhiga badanna waa keenaa marka dhididka jikaaga ka soo baxo waa caafimaad hadda dad badan oo isleeyahay shaatiyaasha iyo dharka baa ku dhaganaa oo caloosha la socon waayeen ama ku xaragoon waayeen ba hadda si fiican magaalada ugu xaragoonayo meesha ugu horeysay oo annaga aan fikrada aan keenno ugu horeysay way oo gobolka Gadow lambar 1 jiimka ka way degmada Beled Xaawo ku yaala sidoo kale dhalinyarada iyagu jirdhiska iyo jimicsiga ku sameeyay goobtaasi oo aan maanta booqday ayaa iyaguna iiga waramay sida ay ugu faraxsan yihiin in magaalada lagu soo kordhiyo waxyaabo cusub oo bulshada waxtar u leh jiimkan magaalada uu noo keenay walaalkeen Quduf aad baan ugu faraxnay horta markii uu imaaday maxaa ahaa أنا وحنا كمدة حاطتك لغو بلاوي جيمك مركي عم بلاوي كهر وحنا هنن ماركتي حوجا على الواحد رمي حد لكن محمد دائما اسلمي ميساكي واحد بدل ما منطقنا منطقنا اسكدمي أدبا وفرح سنة هاي الميت زايد عن قاتها إن ماركتي لأن يردي ولا تقبل كينان حر مرة صب سدا ماركتي إن جيم لغو زايد دقمدا مركز دقمدا كمدي هاي مركا وفرحت aad weyn waxa kamida dhalinyarada mataqaana uslaatay oo banooniga dheel jilay ay laftikoodu way fuudadeen deetana 16 jirkii bay loo ordayay iyagu 7 jira saadaraad barnaamijkaas waa barnaamij aad bulshada waxtar u ah waxaan rabnaa in mataqaana laga soo qayb galo ganacsatada xilliga jaaniska hayaan madheera oo kale to dhalinyarada joogtay iyo ragga joogo culus nooca doonaan baadina ka soo qayb galaan anagu ku soo dhaweynayna iyadoo suufka sidoo kale to way noo iman karaan walaalaha anagu waa soo dhaweynayna way naga qayb gali karaan waana barnaamij caafimaad oo mataqaana qaybaha caafimaadka kamid ah maxamed sheekh maxamuud al-Fagri warbaahinta Star degmada Beled Xaawo ee gobolka Gado Soomaaliya